السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داود ميل والبعض نقد داونيش كسودا وتلح ميديا. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro saad la socoto barnaamij walba oo halkaan aan ka soo daynaa. haddii aad hore iyo nolol joogtayna aad ayaad ugu mahadsan tahay siina shargalay fiidiyowga. tani waa sheekooyinkii aad wada sugayseen. sheekadani waxay inoo noqon doontaa hadda kadib taxano hadduu alla idmo. sheekadani magaceeda waxaa la yidhaahdaa ayaan daran. qisadan ayaan daran waxay ka kooban tahay wacyigelin, waano iyo dhiirigelin. sheekada ayaan daran intaana gudaha u gelin waxaanu nila wadaagi doonaa qoraaga buuggan iyo sababta uu qoray buugga. qoraaga buuggan magaciisu saddexan waa Jaalle Dr. Cabdullaahi Sheekh Xuseen kuna magac dheer Holwadaag. wuxuu soo bandhigay dhacdadan oo ah qiso dhab ah, wuxuuna sheekadan ugu magac daray ayaan daran. waa sheeko aad u xiiso badan oo weli nooceeda oo kale aan la soo tabin, waxaana laga soo dhiraandhiriyey dhibaatada haysata bulshada. waxaa qoraagu si cilmiyeysan u soo bandhigay aragtida ay ka haystaan bulshadeena gabadha dhasha cunuga aabbala'aanta ah iyo sida qof walba noloshiisa ugu halgamo. sheekadan oo si cilmiyeysan loo soo bandhigay waxay wax weyn ka taraysaa la dagaalanka macsida, waxayna darsi ficil ah siinaysaa da'da ku sugan marxaladda hanaqaadidda, marxaladaas oo ay isaga qaldamaan dhabta iyo dhalanteedka. qoruhu wuxuu u gunta dhalinta waano iyo waayo aragnimo ku dhisan dagaal iyo dulqaad. waa sheeko loo baahan yahay in dhalintu akhrisato, gaar ahaan gabdhaha doonaya inay dhisaan mustaqbal loo aayo. intaas waxaa inoogu soo dhammaaday hordhacii sheekadii ayaan daran, taasi oo hadda kadib aad kala socon doonta iyadoo dhammaystiran janaalkiina Taleex Media. fadlan si aysan kuu dhaafin subscribe saaro oo aad ula socoto qayb walba oo halkaan aan ka soo daynaa.